dowladda hoose caasimada Hargeysa ayaa olole nadaafadeed oo ballaaran ka bilowday degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa iyadoo ololahan ay ka fulisay qaybo ka mid ah degmadaasi ayaa waxa ka warbixiyay agaasimaha arrimaha bulshada iyo bilicda caasimada Hargeysa isagoo sheegay in waaxda arrimaha bulshada ay ku howlan tahay si loo nadiifin lahaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee caasimada Hargeysa isagoo baaq u diray shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda iyo qashinka uuna baaqay in bilicda kor u qaadaan isla markaasina shirkadii aan ka soo bixin laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan iyadoo si rasmi ah maanta uga bilaabmay degmada Gacan Libaax aan ku taargetin doono wadooyinka halbowlaha sida wadada ay la ka kacda wadada degmada kor dhaqaaqda ay la shaqo gasha wadada cabaayay iyo kuwa qona oo ugu wareegi doona degmooyinka kala duwan ee caasimada waxaan uga mahadnaqnaa markaa shirkadaha ka qayb qaadanaya runtii oo iyagu soo xiqaabay oo ugu horeysa shirkada Gacan Libaax ee tabsan oo aan maanta degmada ku fulayno gawaaridii loogu talagalay runtii si fiican u keenay runtii shirkaduhu isku jiraan shirkadaha waqooyiga caasimada oo shirkadaha ugu runtii adeeg fiican ee runtii aan leenahay way guteen ama way dhadhaweeyeen waajibaadkii laga rabay shirkadaha koonfurta dhaliil baan soo jeedinaynaa waana la xisaabtami doonaa runtii dhanka kale waxa iyaguna halkaasi soo dhaweeyay qabiilada ku nool degmada Gacan Libaax iyagoo sheegay in dowladda hoose uga mahadcelinayaan ololaha nadaafadeed ee ka fulisay degmadaasi. Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur, telefishinka qaranka Soomaaliland.